Assalaamu calaykum soo dhowaada saaxiibayaal. Hurda yarida iyo xanuunada ay keento ee la daweyn karo ayaa ah waxa ugu badan ee la iska indha tiro insomnia. Caadiyan waa aan ka wada dharagsanahay in hurda xumidu keento caafimaad daro aan la qiyaasi karin, laakiin waxa aan halkan ku kala dhigdhigaynaa noocyada xanuunada hurda xumidu keento, sida ay xanuunada marka hore jirka ugu bilowdaan, calaamadaha lagu garan karo iyo haddii qofku xilli hore wax ka qaban hurda xumida sida uu isu beddelo jirhaan iyo nolo ahaan. In badan oo bulshada ka mid ah ayaa la dhibaatoonaysa caqabadaha ka dhasha hurda yaraanta haddana kuma baraarugsana. Caqabadahaas oo saameeya shaqadooda maalinlaha ah iyo caafimaadkooda guud. Waxaa jira 9 xaaladood caafimaad xumo oo hurda la'aanta laga qaado. Badankood xaaladahan waxaa lagu gartaa mid ka mid ah calaamadahan. Hurdo badan maalinkii in dhib ku tahay qofka wakhtiga saxda ah in uu seexdo ama aysanba hurdadu wakhti u lahayn iyo qarow xilliga hurdada. Saamaynta muddada dheer ee hurda la'aanta iyo caqabadaha ka dhasha hurda xumida ayaa lala xiriiriyaa caafimaad xumo iyo xanuuno badan oo qofka aan hursadiisa xadaynin soo wajaha. Waxaa ka mid ah xanuunada cadaadiska dhiiga oo siyaada, dhiig kar, kaadi macaan, sonkorow, cayil fara badan, isku buuq, depression, wadna istaag, heart attack iyo dhiig maskaxda ku furta stroke. Cilmi baaris wakhti dheer lagu hayay hurda xumida iyo xanuunada ka dhasha hurda yarida ayaa lagu ogaaday in jirka aadamaha ku sababaan isbeddelo badan oo aan la malaysan karin. Si guud hurda xumida dadka waaweyn waxaa lala xiriiriya qofka oo aan seexan saacado ku filan. Celcelis ahaan waxaa laga rabaa qofka in uu seexdo habeenkii 7 ilaa 8 saacadood. Haddii taasi dhicin, waxaa la soo darsa qofka dareen hurdo badan maalinkii, waxaana sii raaci kara xasuus xumi, maskax daal iyo ka gaabinta diirad saarida howl maalmeedka. Sababaha hurda yaraanta. Waxaa jira 2 sabab aad u waaweyn oo lala xiriiriyo hurda la'aanta kuwa oo kala ah. Hal, qaab nololeedka qofka iyo shaqadiisa sida qofka oo shaqeeya xilliga dambe habeenkii. 2, xanuuno xilliga jiifka qofku dareemo sida neefta oo qabata qofka marka uu seexdo. Marka qofka hurdadiisu yaraato waxaa hoos u dhaca dulqaadka xadaynta hirarka sonkorta ee jirka, waxaana timaada in jirka ay ku badato sonkorta marka ka dambaysana ay kor u kacdo, sidaana qofku ula noolaado kaadi macaanka haddii uusan xilli hore noloshiisa wax ka beddelin. Sidaa oo kale ayay hurda la'aantu u saamaysaa dhammaan qaybaha kale ee jirka iyada oo carqaladaynaysa habsami u socodka qulqulka dhiiga, garaaca wadnaha, hab fikirka qofka iyo dabeecadda qofka. Sidee loo xalin karaa hurda la'aanta iyo xanuunada ka dhasha? Si guud hurda la'aantu uma baahna dawo ama la tacaalid takhtareed, laakiin waxaa muhiim ah in qofku isbeddel guud ku sameeyo hab nololeedkiisa islamarkaana yaqaano inta saac ee jirkiisu habeenkii hurdada u baahan yahay iyo wakhtiyada ku habboon in uu seexdo. Dhanka kale, xanuunada la soo darsa qofka wakhtiga dheer ku guda jiray hurda xumida ayaa u baahan in lala tacaalo haddii ay daweyn ahaan lahaan lahayd ama wax ka beddelid nololeed. Sidaa oo kale, haddii hurda la'aanta ay markii horeba sababtay qofka oo neeftu qabato marka uu seexdo, waa in uu helaa mashiinka neef qabadka hurdada looga hortago ee PEP. Si gaar ah xanuunada dhiiga, kaadi macaanka, walwalka iyo cayilka waa in la xaliyaa. Gunaanadkii, seexo hurdo kugu filan habeenkii wax ka badan 7 saacadood. Wakhti cayiman isku day in aad yeelato oo aad habeenkii seexato. Mahadsanid.